maalin wanaagsan saaxiibayaal markan waxaan eegaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Gurceel maalintii labaad waxaa ka socda dagaal oo u dhaxeeya militariga Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada daraawiishta ee maamulka Galmudug. Labadooda ama labadaas ciidan oo isgarabsanayo waxa ay weerar ku yihiin oo ay dagaal kula jiraan xoogagga ahlu sunna oo 3 toddobaad ee la soo dhaafay Gurceel ku sugnaa. sidii aad wararkeennii iyo barnaamijyadii aan idiin soo gudbiyay ula socoteen xaaladda magaalada xalay iyo shalay waxay mid qasan dagaal culus ayaa ka dhacay saaki marka la dagaal ayaa magaalada ka bilowday inkastoo la soo warinayo inuusan ahayn dagaal xoog leh markii loo eego dagaalkii shalay iyo kii xalay ka dhacay Gurceel. militariga Soomaaliya waxay wali ku sugan yihiin dhinaca koonfurta ee magaalada waxay maamulayaan saldhigga magaalada xarunta degmada iyo sidaas oo kale qaybo kale oo koonfurta magaalada ku yaala oo muhiim ah halka xoogagga ahlu sunna ay joogaan dhinaca waqooyi ee magaalada Gurceel. xilligan waxaa laga maqlayaa xabada goosgoos qaybo ka mid ah degmadan Gurceel ee gobolka Galgaduud. saakay mar kale ayuu dagaalkii u dhexeeyay ciidamada dawladda iyo sidoo kale kuwa ahlu sunna oo uga qarxay gudaha degmada waxaana dagaalku saakay ka qarxay aaga saldhigga gadaashiisa iyo sidoo kale xaafadaha dhanka waqooyi ee degmadan Gurceel ee gobolka Galgaduud. ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ayaa dagaalkoodu shalay maqribadii ku gabaldhacsaday iyadoo la isku haysto aaga saldhigga waxaana saakay oo mar kale dib uga qarxay saldhigga gadaashiisa ilaa iyo xaafadaha ku teedsan dhanka waqooyi ah oo ay ku sugan yihiin ahlu sunna wal jamaaca. sidoo kale waxaa la isku tuureynayaa hubka culus ayaa iyadana laga maqlayaa dhinacaas jaamacadda oo ay ku sugan yihiin ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ay gaac kaga jiraan halka iyadana dawladdu ay halkaas ku hor fadhiso. degmada ayadana dhawaqa risaasta ayaa laga maqlayaa balse hadda dagaal sidaas ma jiro marka laga reebo in xabado goosgoos ay ka dhacayaan magaalada. waa maasanta farxaan dawladda xaggee joogtaa maxaa magacyo ama meel magac loo sheegi kara ma jirta ahlu sunna xaggee joogaan aad la isugu jahwareersan yahay media wararka lagu baahinayo way dhib badan yihiin marka ma jirtaa meel aad noo sheegi karto aad leedahay 1 iyo 2 dawladda joogta iyo ahlu sunna halkaas joogta. ciidamada dawladdu waxay ku sugan yihiin aaga laamiga waxa ay joogaan haddii aan ka bilowno goobaha ay joogto beder 1 ilaa saldhigga degmada ilaa saas xaafadaha koonfureed oo dhan ayada ayaa teedsan halka ahlu sunna ay ugu sokayso gadaal xaafadahaas gadaale ee waqooyi iyo sidoo kale jaamacadda Alaabshir wadadaas kale oo ku imaanaysa dhanka balanbala ka imaanaysa waqooyi ka imaanaysa ay ku sugan yihiin. marka haddii la fiiriyo ciidamada dawladda ayaa inta badan magaalada gacanta ku haya halka ahlu sunna ayagana ay ka joogto xaafadaha waqooyi ee ka joogta degmada Gurceel. waxaa iga warantaa maxaa ka jira ciidankan magaalada lagu soo bandhigay la leeyahay waxay ka tirsanayeen ahlu sunna ma cadday karno mana jirto qof ka madax bannaan oo cadday karta dhinaca soo bandhigay ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya oo soo bandhigay dadkan ay ku sheegeen inay ku qabsadeen dagaalka balse waxa baraha bulshada oo lagu arkay in sawiradaas ay soo bandhigeen inay ku sheegeen inay ahaayeen maleeshiyaadka u dagaalamaya ahlu sunna wal jamaaca. ma dhaba in Sheekh Shaakir iyo xubnihi la socday ay go'doon yihiin oo ay dalbadeen in wado loo furo ay ka baxaan mise leedahay wado aag ay ku sugan yihiin haddii xataa ay ugu talagalaan inay baxsadaan. aaga ma jirto ciidanka xaggeeya oo dhanka waqooyi ama ka kor ka xiga shalay dagaalku waxa meesha ugu xoogan oo ka dhacay waaga wadada balanbale ilaa dhankaas waqooyi waaye marka ciidamadii jooga halkaas way ka soo wareegeen oo xalay sida aan wax xogta ku helnay xiriir aan la sameeyeen saraakiisha ahlu sunna waxay sheegeen in halkaas gurmad uga soo galay. marka ma jirto go'doon gooniya balse inta badan dawladda ayaa gacanta ku haysa ciidamada ahlu sunna ayagana dhankaas waqooyi wadadu waa u furan tahay oo ayaga ayaa hadda gacanta ku haya isbitaalka weyn ee Starlin ilaa aaga jaamacadda Alaabshir dhinacaas ayaga ka haya balse waxaa jira warar aanan xaqiijin karin saxaanshooda oo ay timinayaan qaar ka mid ah wariyaasha deegaanka kuna sheegayaan inay dalbadeen balse xiriir aan la sameeyay waa saraakiisha ahlu sunna oo aan qaarkood helay waxba kama jiraan ay ku tilmaameen Hussein.